war degdeg ah daawadayaal dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay in gabi ahaanba la xiri doono garoonka diyaaradaha aadan cabdulle aadan cadde ee magaalada caasimadda ee muqdisho kaasoo maalin dhan uusan shaqayn doonin garoonkaasi warkan dowladda ka soo baxay gaar ahaan hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa waxaa lagu gaarsiiyey fariin travel agenciyada shirkadaha duulimaadka shaqaalaha ka howlgelaya gudaha garoonka shacabka rayidka ahi ee ku soo degaya garoonka iyo kuwa ka duulaya in gabi ahaanba uusan garoonka shaqayn doonin 25 bishan oo ku beegan maalinta khamiista ahi maalintaasoo horey loogu asteeyey in guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir ay ka bilaaban doonto doorashada qof iyo codka ee lagu murunsan yahay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa si gaar ah warkan qoraalka ah ay u soo saartay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya iyadoo sheegtay in ay ku lifaaqayaan fariintoodan baaqii hore ee dowladda uga soo baxay ee ah in gabi ahaanba maalinkaasi keliya lagu mashquuli doono arrimaha doorashada sidoo kalena horeyba loo xiray amaba ay u bilaabatay in la hakiyo goobaha waxbarashada oo fasax la geliyey si kastaba ahaatee garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle aadan cadde ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey uu ahaa mid ay si xowliya u adeegsanayeen madaxda mucaaradka wufuudda ay hogaaminayeen kuwaasoo uu ku qulqulayay magaalada Kismaayo in badan oo madaxdaasi ka mid ah dib ayay uga soo laabteen Kismaayo halka qaar kalena la leeyahay weli waa ay ku maqan yihiin haddaba doorashadan ka qabsoomaysa gobolka Banaadir iyo hakintaasi waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhammaan xubnaha doonaya in ay waddanka soo galaan maalinkaasi ama u qorsheysneed in ay soo galaan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kalena ay ka duulaan daawadayaal waxaad nagala socotaan oyga Banaadir TV